السلام عليكم داودل كسو دوادا مد كمدا عشرة كسابسنا برشادة اللغة الإنجليزية عشر كان و conversation 30 أما ودا شيكيسي صدنات أي عشرة تحنا نوعها فضلا هذا بهدي هذا كحرنين هملا أكاديمي تابع على مدى السبسكرايب كا سياد أركمتو أما وكوسو دعا عشر كي ودن بي أن سو جلنو هذا عشر كان وحاول هلا يلا بقف مركا وحو كبلاونا يسدتن ayaa hadalka bilaa wuxuu yiri did you already take the history exam did you already take the history exam did you adiga ma samaysay ayaa loo jeedaa did you already take the history exam goor hore miyaad qaadatay examkii taariikhda ama imtixaankii taariikhda haddii si kale aan u dhigno waxaa loola jeedaa mar hore ama goor hore miyaad gashay imtixaankii taariikhda ayaa loola jeedaa did you already take the history exam did you already adiga goor horeeto take the history exam miyaad qaadatay imtixaankii taariikhda yeah ha ayuu yiri bigi yeah ha it was hard wuxuu ahaa mid adag it was hard wuxuu ahaa mid adag waxaa loola jeedaa imtixaankii when do you take it goorme ayaad galaysaa ama goorme ayaad iska qaadaysaa intaba waa la dhihi karaa when do you take it goorme ayaad imtixaankaas galaysaa ayaa loola jeeda hadda I take it tomorrow morning waxaan imtixaankaas aan galayaa I take it ayaa hadda lagu fasirayaa waxaan qaadanayaa ama aan qaadanayaa imtixaanka ayaa loola jeedaa laakiin Soomaaliyan waxay noqonaysaa imtixaanka waxaan galayaa beritoole subaxii marka I take it waxaan galayaa tomorrow morning berri subaxii ayaan galayaa marka there is so much material that I don't know what to emphasize on there is so much material waxaa jira waxyaabo badan that kuwa oo marka I don't know aniga aan garanaynin marka what waxa to emphasize on waxa marka aan diiradda aan saarayo waxaa jira waxyaabo badan material wuxuu la jeedaa waxyaabo badan marka waxyaabo badan ayaa jiro ama ayaa jira oo imtixaanka ku saabsan ayuu la jeedaa that kuwa marka I don't know aanan garanaynin what to emphasize on marka waxa aan diiradda aan saarayo marka wuxuu leeyahay waxyaabo badan ayaa jira oo aan ogeyn eriga emphasize on waxa loola jeedaa hadda diiradda saaris marka waxa diiradda la saarayo marka ma garanayo ayuu leeyahay waxa aan diiradda aan saaro what type of questions su'aalo noocee ah ayaa did you get ayaad heshay marka su'aalo noocee ah ayaad adiga heshay imtixaankii ayuu la jeedaa marka mostly inta badan on the civil war waxay ku saabsanaayeen marka dagaalkii sokeeye mostly inta badan on the civil war waxay ku saabsanaayeen dagaalkii sokeeye you should also study the impact Martin Luther King Jr. had on American society wuxuu leeyahay inta badan waxay ku saabsanaayeen dagaalada sokeeye ay ku saabsanaayeen you should also waxaa sidoo kale adiga waxaa sidoo kale you should also study the impact waa inaad sidoo kale aad barataa ama aad akhrisaa saameyntii ama raadkii uu reebay uu bulshada Mareykanka uu ku reebay ninkan la yiraahdo Martin Luther King Jr. saameyntii uu bulshada Mareykanka American society hadda waxaa loola jeedaa bulshada Mareykanka markii ereyada impact waxa dhahanay waa raadkii ama saameyntii uu ku lahaa bulshada Mareykanka oo raadkii uu ka tagay waa inaad marka diiradda asaarto ayuu leeyahay how about ka waran marka Abraham Lincoln waxa la yiraahdaa marka ninkan wuxuu ka mid ahaan jiray dadkii Mareykanka soo maray madaxweynayaasha ayuu ka mid ahaan jiray ka waran ayuu yiri did you get any questions about him
wax su'aalo ah oo si ku saabsan ma ku yimaadeen marka. I had only one question about him. Kaliya waxaa ii timid ama waxaan helay hal su'aal oo asiga ku saabsan. But like you may get more. Waxa laga yaabaa marka inaad adiga aad hesho in badan ama wax badan oo ku saabsan inaad hesho ayaa laga yaabaa marka. I don't know, ma garan karo if he will have the same exam or not. Ma garan karo ayuu leeyahay marka inuu asaga isla imtixaankii marka inuu kugu keeni doono ama mid ka duwan. Wuxuu yidhi I had only one question about him. Kaliya waxaa marka la igu keenay hal su'aal oo ka mid ah asiga. But like you may get more. Waxaa laga yaabaa laakiin inaad adiga hesho in kale oo badan marka. You may get more. Wax badan kale inaad la kulanto ayaa laga yaabaa marka. I don't know. Ma garan karo if he will have the same exam or not. Inuu asiga isla imtixaankii isticmaali doono iyo in kale. Hopefully waxaan rajaynayaa marka. Hopefully rajadu boqolkiiba ama rajadu waxay tahay hopefully waxaan rajaynayaa he will use inuu isticmaali doono the same exam imtixaankii oo kale ama isla imtixaankii inuu isticmaali doono cause maxaa yeelay I'm going to spend most of my time studying the Civil War. Marka wuxuu yidhi waxaan rajaynayaa marka in uu isla imtixaankii isticmaali doono sababtoo ah cause eriga cause iyo because waa isku mid marka sababtoo ah I'm going to spend most of my time studying the Civil War. Waqtigii inta badan waxaan gelin doonaa waxaan doonayaa marka to spend most of my time in waqti inta badan aan geliyo studying the Civil War barashada dagaalkii sokeeye marka waqti inta badan aan geliyo. It is a huge section waa qeyb weyn marka. It is a huge section waa qeyb weyn and that is what he lectured the most on in the class. Marka wuxuu leeyahay waa qeyb weyn isla markaasna waa waxa uu inta badan uu fasalka uu ku dhigayay inta uu joogay fasalka macalinka marka. Wuxuu dhahay marka it is a huge section waa qeyb weyn and sidoo kale that is waa waxa what he lectured waxa uu dhigayay ama waxa uu dhigay the most on in the class. Inta badan fasalka waxa uu ku dhigayay ayaa ah ayuu leeyahay marka. Eriga lectured waxa loo isticmaalaa macalinka markuu wax uu dhigayo ama uu tabanayo. If you can't study everything haddaadan baran karin wax walba then kadibna that is probably the best way to go. Taa marka waxay tahay haddii aadan wax walba baran karin taa marka waa waxyaabaha kaliya ah ama wadada kaliya ee wanaagsan oo diiradda la saaro ayaa loola jeedaa hadda marka. Then kadibna marka kadib ama dabadeed intaa kadib haddaadan wax walba aadan baran karin dabadeed marka waa ay saxsan tahay marka wadada ku socotid ayaa loola jeedaa hadda marka. All right again thanks mahadsanid for the info. It means for the information. Waad ku mahadsan tahay akhbaartaada ama warbixintaadii sheegtay. I got to go to the library waa inaan aadaa now hadda maktabadda. I got to go to the library now hadda waa inaan aadaa maktabadda. Good luck nasiib wanaagsan. Good luck waxa la yiraahdaa marka nasiib wanaagsan. Thanks mahadsan. See you is aragti marka ama waan is arki doonaa ayaa loo jeedaa. See you keywordskii ama ereyadii ugu muhiimsanaa casharka. Exam waxa dhahnay waa imtixaan. History waxa dhahnay waa taariikh. Emphasize on waxa la yiraahdaa xooga saaris ama diiradda saaris. Civil War waxa dhahnay waa dagaal sokeeye. Impact waa raadka ama qofka waxa uu saameynta uu ka tagay. To spend waxa dhahnay waa waqtiga gelinta ama wixii aad waqti badan aad gelinayso ayaa inta badan loo isticmaalaa ereygaas. Halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa casharkii conversationka ahaa ee ku saabsanaa laba qof oo wada hadlaysa gaar ahaan imtixaanada iyo maadooyinka qaar iyadoo laga sheekeysanayo. Marka
intaan muuqaal kale ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.